hay-adda xidig ayaa noqotay haddii ugu horreysay ee gurmada gaarsiisa boqolaal qoysas ah ee ku goodoomay tuulooyinka luuqdheere tuulo raaxo boore qoysaskan ayaa xaaladoodu waxay ahayd mid aad u liidato sheegayna haddii hadda xidig aysan ahayn dadkani xaaladooda inay noqon lahayd mid faraha ka baxda qoysaskan ee la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilliga ay u baanaayeen deeqdani ay soo gaarsiisay hadda xidig taa oo isugu jirta raashin daawo markaneeco malmalaadada carruurta iyadoo halkaa la gaarsiiyey dhakhaatiir wax ka qabata xaaladda caafimaad dadka ku sugan deegaankaasi luuqdheere waa kuwan qaar ka mid a qoyskan kula kulmay deegaankaasi oo noloshooda aad ay u liidato hay'adda samafalka oo xidig waxay noo keentay sisinyeeri waxay noo keentay dawo ugu horeyn waxay noo keentay dawo qaneecada naga caawiso ma garatay dawo iyo sinyeeri iyo saabuun iyo maxay noo keentay bariis sokor bay noo keentay hadda malmalaada carruuraha horta ay ka sii qabsadaan nafaan bay aheene ya ma garatay haddana waa idin sugaynaa way nala joogaan takhaatiirta inaan noo soo gurmatay ilaaha noo keen waa walaalahayna inay na caawiyaan ay noogu yimideen dadkii baaba naga habaabay doonta noogu yimid alaykum raxmatullah waxaan ogeysiinaa bulshada luuqdheere hay-adana taakulaysay maanta annagoo go'toona oo joogno tuulada luuqdheere ka soo barakacnay biyobaxa ina soo barakicisay hase ahaatee ku nool meel la yidhaahda boore oo bannaanka luuqdheere ah oo go'toon galnay maadaama nafta meesha ayna keentay waxaan lehen waa ku baxsanaysiin sanadkii hore ayaan meesha aaga badbaadnay taas la aawadeed ayaan damacnay inaan halka ku badbaadi karna ayaan damacnay tii ayada aheed waa noo suurageli weyse ilaahayna waa naga badbaadiye biyihii ayaa go'toon nagu sameeyey afarta barjaha ayay naga mareen meel go'toone ayaan galnay afarteenna dhinac biyo ayaa jira webiga xaggiisa biyaa naga jira banka biyaa naga jira afarteenna koonna way xihan tahay saas la aawadeeda maadaama afartaayna koona ay xihantay cildaan ayaan dirsanay hay-adaha samafalka ayaa cildaan u dirsanay beesha caalamka cildaan u dirsanay meel kasta ayaa cildaan u dirsanay maadaama go'toon aan ku jirno oon go'annahay go'toonkii la aawadiisa ayaa waxaa boqolkiiba boqol lambar 1 shalay noo yimid hay-ad la yidhaahdo dayax xidig shalay hadday noo timid shalay xidig khayr allaasi waxay noo keeneen daawo oo aad iyo aad boqolkiiba boqol aan ugu mahadin sababtoo ay tahay waxaanu cunayo waa qaneeco qaneecada wixii difaaceeda ahaa iyo kii xanuunsanaa kii hergeb hayay kulli daawadeedii ayay shalay noo keentay daawo kadib waxay soo raaciyeen ayadoo macnaha kidis ay ku noqotay garaamaad oo ku cidsuga oo la leeyahay ka gaarsiiya ummadda dhibaatoon kidis ayay ku noqotay garaamaadkaas oo ah waa bariis iyo sokor khayr allaha siiyo boqolkiiba boqol shalay nimankii waa lumeeda maalihii la kala raadiya ilaahay maqaadkiisa waa la helay xalay intay nagula baryeen saaka haddana waa noqdeen hadda waxaan dul taagannahay wixii kaloo agab ah oo daawo baalkii le saabuun leh sisiyeeriyaal leh kiniiniga koloriinka leh baaldiyaal biyo lagu caba leh intana haddaan dul taagannahay kasimoohayaan dadkii meesha ku go'toonsanay tuulooyinka meesha ku go'toonsanna waa luuqdheere buulo raaxa jiiq dheer cismaan aadan carays raadiyo wadani an TV beledweyne